deeqdan raashinka ah oo ka koobnayd bur, bariis, sonkor, saliid, caano iyo galey ayaa waxaa iska soo aruuriyey gabdho Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolada Virginia, Washington DC iyo Maryland ee dalkaasi Mareykanka oo ku midaysan hay'adda Maca Foundation iyadoo qaxootiga Yemeniyiinta ah ee ku nool safaaradda wadankaasi ee Soomaaliya uu ku leeyahay ee degmada Shangaani ay soo gaarsiisay Titoresa Maryan Maxamed Xuseen oo wakiil ka ahayd Faadumo Cali Macalin iyo Limaan Cabdulle Sabriye oo ah hormuudka gabdhaha deeqdan ay ka timid oo ka soo jawaabay baaqi kol hore ay u jeedisay marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar waxaana deeqda wakiilka gabdhaha ku dhaqan wadankaasi Mareykanka ay ku wareejisay safiirka Yemen ee Soomaaliya Maxamed Shay qaar ka tirsan qaxootiga Yemeniyiinta ah ee la soo gaarsiiyey deeqda raashinka ah oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa uga mahad celiyey gabdhihii iska soo ururiyey deeqda iyo marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar oo ay sheegeen markasta baahidooda in ay u qayla dhaamiso كل يوم ساعدونا وشكر من اليمنيين طبعا لكم خمر طبعا بالذات شكرا كثير واي وحده تساعدنا بنشكرها. نشكركم ان شاء الله تعالوا معنا تشوفون نظريه رحمه العالم كله والبنات دي فاطمه والليمان اللي يساعدونا لازم يزيد جهدهم يساعدونا ما عندنا اي شيء نعم. هنا بصراحه نحن هو صراحه عشان يتعب ويروح كل مكان عشان ياكل اللي موجودين هنا يروح كل مكان يساعد كل الجمهورية اليمنية اللي عايشين داخل الصومال. Titoresa Maryan Maxamed Xuseen oo ahayd wakiilka deeqdan soo gaarsiisay qaxootiga Yemeniyiinta ah ayaa sheegtay gabdhaha ku midaysan hay'adda samafalka ee Maca Foundation deeqdan ay soo dhiibeen inaysan ahayn tii ugu horeysay ee ka timaada. waxaan ka wakiilahay gabdho Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Virginia iyo gabdho kale oo degan Washington DC iyo Maryland oo ayaga isku soo taxaluujiyay baaqi ay jeedisay marwada koowaad ee madaxweynaha ay tiri hal soo gargaaro dadka walaalaheena ee Yemen ee jooga Muqdisho. safiirka Yemen u fadhiya Soomaaliya Maxamed Shay oo asaga lagu wareejiyay deeqda raashinka ah ayaa uga mahad celiyay gabdhihii soo dhiibay raashinka iyo marwada koobaad ee madaxweynaha Soomaaliya Qamar Cali Cumar dadaalka ay u galeen u gurmashada walaalahooda Yemeniyiinta ah. sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho.